kulan lagu xoojinayo sidii loo adkeyn lahaa calaaqaadka cusub ay dhawaan yeesheen dawladda kumeel gaarka Soomaaliya iyo dawladda Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay hotelka caalamiga ee Noora International oo ay ku yaalo xaafadda Mayfair oo Soomaalidu deegaan ahaan ugu badan tahay ee magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. kulankan ay ka soo qayb galeen saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda dalkani Koonfur Afrika, danjiraha safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika, ganacsato iyo madaxda jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika. kulankan ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay madaxa xiriirka caalamiga ee bariga Afrika ee xukuumadda Koonfur Afrika, isagoona sheegay in ujeedka kulankani uu ahaa sidii loo xoojin lahaa xiriirkan cusub ay dhawaan yeesheen dawladda Soomaaliya iyo xukuumadda Koonfur Afrika. I'm pleased to have this discussion with Somali TV. My name is Sibu Makongo, and I am the Chief Director for the Department of International Relations, responsible for East Africa. I'm here to welcome the Ambassador Designate of Somali, Ambassador Said. danjiraha cusub ee dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya dhawaan u soo magacaawday dalkani Koonfur Afrika, mudane Sayid Xasan Shariif ayaa isaguna dhinaciisa ka hadlay ujeedka kulankani iyo waxa uu ku saabsanaa. marka aan soo koobo wuxuu qayb ka ahaa dhimeystirna ka ahaa barnaamijkii ahaa calaaqaadka Soomaaliya iyo South Africa oo la kala saxiixday 13 bishii Maarch sanadkan, taasoo la doonayo in xoog looga yeelo in calaaqaadka Soomaaliya iyo South Africa uu xoog lahaado una gaaro heerkii uu sareeyay oo uu sinaado safaarad Soomaaliyeed oo halkan laga furo iyo mid South Africa ay leedahay oo xamar laga furo. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada furitaanka safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalkani Koonfur Afrika, ganacsade Yuusuf Culusow ayaa isna ka waramay hawsha safaaradda halka ay haatan marayso. aniga ku hadlayo magaca guddiga qabanqaabada safaaradda Soomaaliya ee South Africa. waxaan u gudbinay in safaaradda hawsheedii dhamaatay oo aan rajeynay in usbuuca dambana ay furmi doonto safaaradda. sawaatee kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika, ganacsatada Soomaaliyeed, danjiraha u fadhiya dalkani Koonfur Afrika, dawladda kumeel gaarka Soomaaliya iyo saraakiil sarsare oo ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Koonfur Afrika ayaa noqonaya kii ugu horeeyay abid ay yeeshaan. Abdinaasir Soomane, Universal TV, Johannesburg.